subax wanaagsan waxaan ku sugannahay xarunta baarlamaanka Soomaaliya oo maanta uu ka dhacayo kulan looga hadlayo doorashada gudoomiyaasha gudiyada baarlamaanka arrintaasaan maaragtay halkan u joognaa oo runtii aad muhiim u ah waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar aan ka hadlo dhacdadii hoteelka Xayaad ee shalay ka dhacday halkaasi oo dad fara badan ay ku dhinteen dadkii Soomaaliyeed ee dhintay dhamaantoodba xalay qaar ayaa la aasay qaar kalena saaka ayaa aaskoodii oo frinjeerada ku jiray la aasay xaaladdooduna maaragtay dadkii kale ee dhaawac ahaana xaaladoodu qaar baa ay wanaagsan tahay soo wanaagsanaato dhaqaatiirtu ay ku dadaaleen qaarna weli xaaladoodu way liidataa waxaan jeclaan lahayn kuwa daran in dawladda ay qayb ka qaadato sidii dadkaas xoog loo saari lahaa oo loo caawin lahaa dadka dhibaatada culus ay soo gaartay qaar intaan la soconno gacmaha laga jaray qaar lugaha laga jaray dhibaato badan ay dhacdo dadka qaarkood ayaa waxay iska soo tuureen meelo dhaadheer marka annagu maaragtay maadaama aan shacab nahay hay'adda fulinta ayaa u qaabilsan inay ka hadasho khasaaraha meesha ka dhacay iyo arrimaha la xiriira laakiin annagu maadaama aan nahay golaha shacabka iyo xildhibaan aan nahay waxaan ilaahay ugu baryaa intii dhimatay inuu ilaahay u naxariisto dadkaas Soomaaliyeedna waxaan ku baaqayaa in la caawiyo oo dawladdu ay xil iska saarto sidii loo caawin lahaa dadka meesha ku dhintay horta waa 20 intaan sidaan ku maqlay laakiin dadka aniga ahaan quseeyeen xildhibaanka u ahay waa ilaa iyo 12 qofood marka dadkaas dhamaantoodba waa wixii dhintay oo dhan waa la wada aasay kuwii dambeeyay saaka la aasayay inta kalena insha Allah dhaawacana waa ku dadaalaynaa waxaa kale oo rajaynaynaa in dawladdu lafteeda iyo ay qayb ka qaadato sidii dadka Soomaaliyeed loo caawin lahaa xildhibaan waxaa jira dad aad u daran oo dhibaataysan oo aan awoodin isbitaalada in lacag lagu bixiyo waxay ku dhacday in hoteelka Xayaad in laba maalin shabaabka dhex dagaalamaan laba habeen arrintaas maadaama xildhibaan balaa shacabka amataysa annagu horta waa wax laga xumaado weerar in inta la eeg saacad inta la ganay ku jiraan kullay baarlamaanka Soomaaliya isaga u qaabilsan la xisaabtanka hay'adaha arrintaasna baarlamaanka ayaa maaragtay ay qusaysaa oo si weyn uga hadli doona laakiin aniga shakhsiyan waxaan aaminsanahay in isla xisaabtan u yimaado si waxyaabahan dhacaya iyo dadkan Soomaaliyeed ee dawladdu ay mas'uul ka tahay iyo maaragtay goobaha ay dadku in la damaanad qaado dadka amnigooda lagana shaqeeyo waxaan ku bogaadinayaa cid walba oo ka shaqeynaysa la dagaalanka argagixisada kooxdaas waa koox ummadda Soomaaliyeed dhibaato ku ah shakhsi kastana dilaya qof walba dhibaato u geysan doona sida darteed waxa habboon in wada jir loo la dagaalamo marka ay maqlaan dagaal baa laydinku soo qaadayaa waa laydinla dagaalamayaa waxay inta badan sameeyaan weeraro ay dadka ku asqaynayaan ku argagixinayaan oo ujeedkoodu ay tahay in laga gaabiyo marka waxaan ku riixaynaa oo ku maaragtay tirtirsiinaynaa dawladda Soomaaliya inay hawshii ay ballan qaadeen oo madaxweynuhu ballan qaado ra'iisul wasaaruhu ka hadlay oo ay sheegeen inay ahmiyad siinayaan la dagaalanka argagixisada in ay xoog saaraan isla markaana dalka oo dhan laga bilaabo sifayn lagu sameeynayo kooxdaas ummadda Soomaaliyeed dhiigooda maaragtay banaysatay haddaanan la iska celinna waxaan hubaa in xaaladdu intan ay ka sii adkaan doonto qof walba waxa habboon oo Soomaaliya inuu ka qayb qaato la dagaalankaas runtii dawladduna maaragtay waa inay ahmiyad siisaa oo xoog saartaa sidii dadkaas loola dagaalami lahaa waana dacaayad iyo propaganda ay doonayaan in ay hadda meelaha maaragtay ay dadka ku niyad jabiyaan sababtoo dadka waa daciif markay dad dhintaan oo inta la arko waxa la leeyahay dawladda la eedeynaya ujeedka ay leeyihiin waa intaas waa inaan dawladda garab la siiyo oo dadka Soomaaliyeed laga maaragtay dul qaado cadawgaas dul taagan